asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi barnaamijkeennan diblomaasi ayaynu maalinimada maanta ku qaadaadhigaynaa sababaha dowladaha reer galbeedka ay haatan uga caajiseen hubayntii dalka yukrain mase u muuqdaan dowladaha reer galbeedka gebi ahaantooduba inay mar dhow joojinayaan taageerada dalka indhawaaleba waxa laga dareemayay dalalka reer galbeedka ee hore u taageeri jiray yukrain inay ka caajiseen hubayntii dalka toddobaadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka yukrain uu booqashooyin kala duwan ku tegey dalalka maraykanka iyo kanada iyo dhowr kaloo dalo adduunka ah valadimir zelenski ayaa sidii lagu yaqaanaba dalalka ku codsaday inay hubeeyaan dalkiisa kana bixiyaan kharashaadka iyo mushaaraadka ciidamada dalka balse safarkan madaxweynaha ayaa waxa uu ahaa mid ka duwan safaradiisii hore dalalka reer galbeedka markuu booqdo zelenski waxa uu kala kulmi jiray soo dhoweyn aada u weyn soo dhoweyntaasu ma ahayn mid ay jacayl u qabaan dalalka reer galbeedka ahi dadka yukraaniyiinta waxaanuse ka wada dhergsaneen inay ahayd xumaynay xumaynayaan dowladda ruushka ayna danaynayeen inay dagaalka ka socda dalka ku dabadheerayaan ciidamada ruushka ah si halka ay ugu baaba'aan ciidamo badan oo labada dhinac iyo weliba tan ugu muhiimsan oo ahayd dhaqaalaha dalka ruushku waxayse haatan u muuqdaan dalalkii taageerayay dalka yukrain inay ka daaleen arrintaas ayaan ahayn mid lagula yaabo maxaa yeelay dhaqanka bini'aadankaaba daawadayaal waxaa ka mid ah in wax walboo daba dheeraada ay ka daalaan marka laga tago siyaasiyiinta dalka maraykanka waxaaba ka hadlay dadyowga iyagoo adduunka caanka ka ah ninka ugu hantida badan adduunka elon musk waxa uu sheegay in arrinta yukrain ay tahay mid ay ka daaleen waxa uu sheegay si shakhsi ah inuu isagu ka daalan yahay dagaal ka socda dalka yukrain iyo lacag bixintooda joogtada ah dowladdiisana waxauu ka codsaday inay wax weyn ka beddesho siyaasaddeeda arrimaha dibadda balse madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden weli waa mid sheegaya inuu taageerayo dalka yukrain waxa uu sheegay ilaa iyo haatan joe baiden inuu isku dabariday dowlado ka badan konton oo weli danaynaya inay sii taageeraan dalka yukrain xaqiiqduse waxay tahay daawadayaal innaguna aynu wada ognahay in dalalka reer galbeedka ay haatan yihiin kuwa ka caajisay lacag bixintii joogtada ahayd ee dalka yukrain sidoo kale doorashadii toddobaadka ka dhacday dalka slovakiya ayaa waxaa la saadaalinayaa in ka talinta dalka uu ku guulaysto ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ra-iisul wasaarahan ayaa waxa uu caan ku ahaa taageerada iyo jacaylka uu qabo dhaqanka iyo dadka ruushka ah waxaana uu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkiisu ka tirsan yahay gaashaanbuurta nato iyo midowda yurub ee ku dhawaaqay inaanu hal xabo rasaasa u dirayn dalka yukrain 15 bishanna waxaa doorasho looga dareerayaa dalka Poland oo xisbiga ka taliya uu sheegay toddobaadkii la soo dhaafay inuu gebi ahaanba joojiyay taageeradii uu fidin jiray dalka yukrain dagaaladu ka socdaan deriskana la ah dalka Poland ayaa waxa uu ahaa dalkii ay reer galbeedku hubabkooda isugu geyn jireen kadibna looga diri jiray dalka yukrain arrintu maaha kuwa dhowrka dalku eega dowladaha yurub oo dhan ayaa haatan waxaa ka muuqda caajis aad u weyn markay noqoto hubaynta iyo kharashsiinta yukrain madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell waxaa warbaahinta u sheegay inuu haatan miiska u saaran yahay midowda yurub qorshe lagu eegayo taageerada dalka yukrain dalalka midowda yurub iyo gebi ahaanba reer galbeedka ayaa laga dareemayaa diidmada dadyowgu ay ka muujinayaan lacag bixinta badan ee yukrain ugu dambeyn waxaynu wada ognahay lacagaha dowladahaasu ay siiyaan yukrain inay yihiin kuwa ay cashuur ahaan dadkooda kaga soo ururiyeen ugu dambayntana dadku hadday diidaan dowladahaasu maaha kuwo awood u leh inay sii taageeraan dalka yukrain balse wasiirka arrimaha dibadda ee yukraaniyiinta dimitri kuleba waxaa warbaahinta u sheegay in uu weli sii rajaynayo dowladaha reer galbeedka inay sii taageeraan dalkiisa valadimir zelenski ayaa dhankiisa sheegay waa madaxweynaha yukraaniyiinta in dagaalka yukrain ka socda aanu ahayn mid ku ekaanaya yukrain oo keliya dowladda ruushkuna ay leedahay qorshe istaraatiijiyadoodii doonayso inay ku weerarto kuna qabsato gebi ahaanba dalalka xorta ee yurub hadalka madaxweynaha yukraaniyiinta ayaa waxa uu yahay mid xodxodasho ah uuna had iyo gooraale ku cabsigeliyo dalalka yurub oo iyagoo kuwa dhaqaalo wanaagsan haystaa balse aan haysan ciidamo la dagaalami kara dowladda ruushka daawadayaal bilihii lasoo dhaafayba waxaa inoo muuqatay habaacsanaanta weyn ee ka jirta dalalka reer galbeedka markay noqoto hubayntii yukrain inkastoon horeba idinku sheegay dabeecadaha bini'aadanka inay ka mid tahay inay ka daalaan wax kastoo daba dheeraada haddana dowladda ruushku dagaal walbay gasho weligeedba waxay ahayd mid ku adkaataa wakhtiba wakhtiguu ka dambeeyo dagaalkaasu sii socdo dowladihii weligoodba dalka la dagaalamayay ayaa waxay ahaayeen kuwa si iyo si kaleba sahaydu uga goodo dowladda ruushkuna waxay caan ku tahay inay dagaalami karto dagaal isagu socda muddo aada u dheer
daawada ma kuu muuqataa reer galbeedka inay ka daaleen hubayntii iyo dhaqaale bixintii badnayd ee Ukraine? mase kula tahay in la soo gaaray xilligii ciidamada Ruushku ay gebi ahaanba gacanta ku dhigi lahaayeen Ukraine inta ka hartay? fadlan aragtidaada nagula wadaag qaab kommentiya mahadsanid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.